السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورقيارة السود هذا ومانتا إن شاء الله تعالى برنامج كنا وهنبليو عن أدرايو معمولك عصب وجونا دنبي يجلشوا دولة فدرال كصوماليا معمولكاس أو وجوما عابي وقوي بري صوماليا رالي هذا أساسي وعن لقب صنعي لكن وقوي بري صوماليا ونسود وينايا وحنلاقي هاي هنبليو دمان dadkii ku howlanaa hawshan in ay hirgasho ama ha ahaadaan ragii dhigooda u daadiyay ee shuhadada u ahaa dagaalka u galay in la helo maamulkan ragii ku dhaawacmay ragii soo yegleelay 33 gudigii ahaa baalkan meel adag baa laga keenay meel dheer baana laga keenay maamulkan in maanta uu ku naaloodo inuu noqdo maamul jira kamid ah maamulada Soomaaliya waxaan aad iyo aad ugu hambaliyaynayaa dadkii ku howlanaa maamulkan dhisidiisa iyaga oo ka dhabeeyay hirgeliyayna in maamulkan uu noqdo maamulkii ugu horeeyay ee Soomaaliya ka dhisma oo aan wax dhiiga ku daadan oo aan la isku laynin khilaaf waa jiri karaa wax ka qabsi waa jiri karaa 50-50 waa jiri kartaa laakiin maamul uusan dhiig ku daadan waad ogtihiin kii Jubbaland waxa laga soo maray dhiigi ku daatay iyo barahiiraale imaashadiisii iyo iftiin baasto madaxweyne sheegashadiisii iyo xabadii ka dhacday Kismaayo waa ogtihiin kan galmudug sidii la sugu keenay xeeb dhuusamareeb oo wadaadadii ay joogeen suufiyada iyo kii kale oo ka dhisnaa isagana gaalkacyo so galmudug waxa laga soo maray waa ogtihiin dhiiga ku daatay waad ka warqabtaan marka maamulkan in uu noqdo maamulkii ugu horeeyay oo wax dhiiga isaga oo aan ku daadan warqad cad intii la siiyay la isu tanaasulay si walaaltinimo ah si jiritaan iyo tolnimo ah loo dhisay oo la yiriniyo warqadaas cad qaado wax rabtana ku soo qoro marka waa maamul ka duwan maamulada kale sidii loo dhisay maamul dagaalkii hore iyo tacaabkii laga soo maray oo iyo rafaadkii hore ma ogiye maamul ku imaaday rabitaan shacab isu tanaasul isgarabsiin iyo walaaltinimo lagu dhisay maamulka marka wuxuu noqon doonaa insha Allah taala maamul ku sii socda wadadaas sida aan rajaynayno waan soo dhaweynayaa waxa kale oo aan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo wasiirka arrimaha gudaha Cali Hoosh oo waqti fara badan galiyay in la helo maamulka lixaad ee dalka Soomaaliya ku soo biira ee dawladda federaalka ka mid noqda kaas oo aad ogtihiin 2 usbuuc ku dhawaad in uu u fadhiyay sidii loo yegleeli lahaa isu soo jiidida ergada dhamaystirka ergada waxaan hadda sugnaba insha Allah taala waa baarlamaankii la ansixiyo iyo wasiiradii waxaan iraahdaa baarlamaankii la ansixiyo iyo dastuurkii la ansixiyo sidaas la mid ah waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in maamulkii bacda taab washida uu dhaqan galo hirgalo una dhaqaaqo oo maanta qoladan SSC ay noqdaan waqooyi bari Soomaaliya maamulkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ka yagleelma ama ay dhisto dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waan ku hambaliyaynayaa inay aqoonsi ka helaan dawladda waqti badan ayaa ka galay waan ku hambaliyaynayaa inay iyagu isu tanaasulaan oo ay maaragtay isla dhistaan maamulkooda si ehelnimo walaaltinimo iyo isu tanaasul uu ku jiro marka waxaan leeyahay hambalyo kulligiina waxaad noo soo qortaan insha Allah taala hambalyo si aad u muujisaan dareenkiina iyo shucuubta maanta ay dareemayaan dadkaas ku nool goboladaas oo iyagu dib iyo dil iyo wax walba u soo maray in ay maanta helaan riyadoodii ahayd in ay maamul noqdaan hore u sheegeen inaysan rabin inay Puntland ka mid noqdaan hore u sheegeen inaysan rabin inay Somaliland ka mid noqdaan oo ay helaan maamul ay gacantooda iyaga ay ku dhisteen oo ay iyagu maamulanayaan oo ay noqdaan maamul kamid ah gobolada steedyada Soomaaliya ka dhisan maanta federaalka ah marka hambalyo intaas ayaan rabaa inaan kaga baxo warkayaan idinku badinin maanta dareenkayga lama soo koobi karo aad baan u faraxsanahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh